عاد شيفا يونيفرسيتي maxaa faculty midwifery waxaan si gaar ah ugu mahad celinay marka hore Ilaahay baa mahad iska leh marka labaadna waxa mahad iska leh maxaan ku dhahdayay hooyadii iyo aabahay iyo waalidkay iyo dhamaan family iyo asxaabta dhan walaal wanaagsan fikraysa aniga waa aqal jabir laakiin walaalkay waa aqal jabinaya Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil qalabka abwaan qalabjan fahmaysaa waxaan ku suganahay hotel Cafe ee magaalada Burco oo qalabjimita wuxuu noqday horta abaanimadii wuxuu ku darsaday teatal kale abaagu wuxuu noqday doctor wuxuu dhameeyay jaamacadda Shifa farceeda magaalada Burco wuxuuna dhameeyay kulliyadda loo yaqaan lab qofkii xanuun qayo laga baaray uu ka baaray wallahi abaan baa doctor intuu ka baaro ayuu waliba dawladdan ku sheegaya oo sawdana suugan kuugu muujinaya waa dhaqaatiirta tirada yar leeyahay ku jira moogta intaasina waa kaftanayga aato waxay adigu wada la socotaa waxaad leedahay waxaan leenahay inkastoo la arko magana xagad waxaan aan leenahay waanu hableeyna walaalkayo bulshadana waan dhex qaadanaa intiina bibiila nagu qaray ما شاء الله والله برينا مرودي سارن أرتدي مرودي قف إن هذا يكون بفلوك نيجي قاسمة مرودي ما سارن لا بالله تلاقي إن هريا مرودي كان مرودي عادي بارشة بفولة لا بعمل يا لا صاحبي إلى يدوي إلى عافية مرودي نفس كاش كمان أنا أقول والله على بدقليش قلنا رولو ريجي بس أنا هريا وحنو والبرشوك شوك كتجيني والله ما كشكي saad arkaysaan daawadayaal wali waxa lagu xunsan yahay albaabka ay ardaydu ka soo baxayso wali muu soo bixnaa abwaanku balse waxaanu taaganahay kadinka oo wada sugaynaa si aan ugu hambalyeeno walaalkeen abwaan Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil qalabjan san hore inta ku sheegay nin doctora maanta laba teetal waana abwaan waana doctor bulshaduna dhamaan waxay hambalyeynaysaa ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda bulshooyinka gobolka Burco intii ugu badnayd waxaan hubaynay maanta ku sugan tahay hotel Cafe ee magaalada Burco عاد برودكشن عبد الرشيد بس ني قرب تاجن صار كسان سي دي بوستا عبد الرشيد كل واحد كم بتاعي dhalinyarada ka shaqeynaysa xafladan si fiican marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa Explore Channel saad u aragteen horta muuqaal ka sameeyno maanta aad iyo aad baad mahadsantahay Jamaal iyo Cabdirasaaq baa labadiina oo idigu mahad celinaa sida balaadhada oo la qayb qaadanaysaan farxadda ardayda qalin jabinaysa waxaan leeyahay dhiirigelin fiican bay ardayda u tahay halka si badanba waa loo baahan yahay halkan waxaan ku hambalyeynaya dhammaanba ardayda jaamacadda si gaar ahaan marka loo soo eego waxaan ku mahad celinayaa ugu hambalyeynaya mid ka mid ah shaqaalaha xafiiskayga oo Burco B Maxamed Mahdi Cabdi oo ka qalin jabinaya maanta halkan waxaan leeyahay cilmiga bartay Ilaahay ku anfaco hambal iyo kun jeer baan leenahay amiin baan leenahay igu soo dhaw doctor oo ku soo dhaweynaya marka koowaad marka labaadna kulli waa la iska ogsoonayay marka bulshadu way la socotaa waxaan halkan u nimaynaa adna cidadu hambalyeynayso annagu markii hore waxaan u nimi xafladda abwaan Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil qalabjan adiguna cidda u timid oo hambalyeyn doonto horta dhamaan waxaan u hambalyeynayaa ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda Shifo gaar ahaanna kulli waxa igu jira dad fara badan ma aha mid kaliya iyo 2 iyo 3 toon qaar halkan ku soo koobi doona koobi kara iguma jiraan
aad dad fara badan oo asxaabnahay ayaa ku jira abaan qalabjaan ka mid yahay maxamed mahdi cabdilaahi ka mid yahay yaasir ka mid yahay iyo inana walaalnahay isna ibraahim cabdilaahi cabdi iyo dhammaan arday fara badan oo ahayd classmate-keygii ayaan halkan uga hambalyeynaya classmate-kaaga si kale dadku arkaan waa kii iskuulka form 4 waxaana ka mid ah ani lafteedu waan soo qalin jabiyey laakiin halkan ka qalin jabin Hargeysa ka qalin jabiyey tanteedina way ahayd jaamacadeedina way ahayd qaybta Hargeysa 20 bishna way ahayd ardayda halkan kulay ku jirtay galaaskayga ka mid ahayd waxa ka mid ah laba hawlood ayaan baan hadda si fiican u xusayaa waa Umar Faarax iyo Khair Cabdilaahi labada hablood baa iyagana ku jira ilaahay ku anfaco hambaliyana waan leenahay hambaliyana la yaaridaa dhamaan aad baad mahadsan raxiin doctorkii abwaankiisa aradan waan iska dheeray kulli waxaan u dhashay waynaas muujisay daana ka ismuujiyay waxa dhameeyay noocaas midna ma waxba loo baran karayn doctor xidho muraadahana xidho كنا قاعد سنقل وانا ولي يسوع المراد وقفت ما شاء الله عبد الرحمن ارتمك كود ولا وان كو همبلينيا برلبادكana waxa la yiraahday cilmigaad baratay inuu kuga anfaco ayaanu kaaga bareena adigu waxaad kamid ahayd ka qayb qaatayaashii hambaliyada abwaanka maxaad leedahay bismillaah in alxamdulillaah nahmadu wa nastaciinu wa nastaghfiruh na'uudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma ba'du abwaanka maca doctorka waan ducaynayna marka hore waana salaamana waxaan leenahay ilaahay ku anfaco cilmiga aad baratay adiga iyo dalka iyo dadka iyo family-ga iyo asxaabta insha Allah waanan ugu hambalyeynaa ugu bogaadinayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hore walaal mikrofoonkan mar oranaya ii kaadi way qof saas maamulaya doonayeen wuxuu boorayay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan u nimi inaanu kala qayb qaadano qalinjibinta farxadda walaalkay Cabdiraxmaan Maxamed Qalabjaan dalkaaga iyo dadkaagaba ku anfacbaan leenahay cilmiga soo naftiisa ku anfaco annagana nagu anfaco dhammaan intii la qalinjibisay inta in lagu baan leenahay waxa weeye waa abwaan waxa weeye waa mufakkar waa hal abuur intiba wuxuu ku darsaday maanta inuu waliba skills kalena ku darsado caafimaadkii mihnadiisa gashado marka dhammaan baan ugu hambalyeynaa inaanu dadaalkiisu marnaba joogsanin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad hambalyoon baan leenahay hambaliyo oo ku soo dhaweynaya walaal marka hore mar labaadna de kulli waxaad meesha u timi waad garanaysaa in weyn baa tayle waxayna isu sheegay bismillaahir rahmaanir rahiim doctor Cabdiraxmaan Qalabjaan oo hambalyeynaya aad iyo aad ugu hambalyeynaya hambaliyo mar labaad kana dawaan u duceynaa waxaan leenahay cilmigaaga ilaahay ka dhigo kii dalka iyo dibadda iyo dunidaba anfaca kuna meel wacan ku gaadhaan leenahay hambaliyo Cabdiraxmaan abwaan baa tahay waliba abwaanina magaca baa tahay waliba nin hal abuur baa tahay ninka sheekha baa tahay ma garanaysaa waxa uu kaadiyo inta ku dhaafo ninkan waliba qalinjabiyana waalidooda maxaad leedahay horta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay qalinjabinta Cabdiraxmaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya isaga iyo ardayda kale ee maanta qalinjabisay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waa gool ay gaadheen kan maanta gulashooda ay nolosha mid kamid ah marka waxaan isaga iyo ardayda la qalinjabisay aad iyo aad ugu tahniyeedinaya qalin beddelashadooda waxaan rajaynayaa insha Allah billahi kariim in badan sii wadan doonaan oo kamid ah life cycle-ka training-kan loo qaadanayo sidii wax looga bedeli lahaa nolosha aad iyo aad baan uga hambalyeynaya insha Allah billahi kariim waxaan rajaynayaa inuu inta badan inta sii wadi doono markaas imaka saasan ban kaga baxaya aad baad mahadsantahay Sakariya soo dhaw macallin Sakariya waliba ninkan aad baad u garanaysaa teetal hor u lahayo abwaannimo annaga imika uu dhaafay isagu doctor baadana ku darsaday maxaad leedahay marka maanta bulshada horta horatay dambeetay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma hadle runtii inuu kulmiyay madashan farxadda iyo qiimaha leh aanu ku hambalyeynay walaalkay Cabdiraxmaan ama saaxiibkayo Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil Qalabjaan oo runtii ah isagu nin ballaaran oo ma garanaysayo isku darsaday hawlo fara badan abwaana jilaaya fakira maanta ku darsaday ma garanaysaa cilmiga ma garanaysaa waxa ballaaran soo qaaday cilmiga caafimaadka ku daray runtii waxaan oran karnaa isagu waa doctor kulliyo dhamaanba wixii uu isku koobsan yahay aad baan ugu hambalyeynaa walaalkayo waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhiga kii dadkiisa iyo diintiisa waa ku anfacaa
inta kale ee la qalin jabisay asxaabtiisa iyo ka mid ahna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayagana intaas in leeg baanu leenahay farxad iyo mustaqbal wanaagsan oo ifaya ayaan rajaynaa kun hadda ku jira si wanaagsan assalaamu calaykum ma sha Allah daawadayaal wali waxaanu ku sugannahay hotel Kaafi ee magaalada Burco waxa ku qalin jabinaysa jaamacadda Shifa University farceeda magaalada Burco hadda waxaan soo gaaray ninkii aanu soconnay Cabdiraxmaanow marka hore waan ku hambaleynayaa walaalle waxaad soo qaadatay bahalka weyn ilaahay baa weyn waaxide marka hore nala taatay baad abwaan baad nala ahayd jiraabaad nala ahayd maanta doctor baad noqotay sidee buu dareenkaagu aad iyo aad baan saaxiibka ugu mahad celinayaa aad iyo aadna waxaan ugu mahad celinayaa cid kastoo ka soo qayb qaadatay farxaddan aan maanta gaadhay ugu horeysa maamada oo meesha goobteena ugula sugan Aamin Jaamac Diiriye aabahay Maxamed Ismaaciil Aadan sidoo kale adeeraday Cabdiraxmaan Ismaaciil Salaan Cismaan Qalabjaan dhammaan intii familygayga iyo intii macallimiintayda iyo intii arday aanu geedi waxbarasho soo wadnay iyo intii kale aanu sidaadoo kale hawlaha kale aan imka sheegay soo wada wadnay aad baad u mahadsantahay saaxiibkii Cabdirasaaq Aadan oo kamarada inoo duubaya aad baan u salaamayaa waxa weeyaan maanta hadal badan oran karmayo aad baan u faraxsanahay ugu dambeyn waxaad mahad celisay maamadaada mar labaad iyo mar saddexaad baan ugu ku hambalyeynaa Cabdiraxmaanow ma la oran karaa horta fakalkaad bartay magacii maanta oran horta title aan lahayn bay saarto doctor bay lahaydeen doctor ma yihiin medical laboratory baan bartay war maqlaysaa baaritaanka xanuunka title-kii ay sheegay qofka xanuun baa laga baarayaa marka la garto haduu waxba ku fahmi waayo farti dhaqaatiirta waxa lagu sheegayaa suugaan bal ninka wuxuu isku darsay meeshaaga aad oo kugu meel celiya mar labaad iyo mar saddexaad baan ku hambalyeynaya saaxiibkay qaali Cabdirasaaq Aadan Cabdullaahi oo isna muuqaalkaasi naga duubaya aad baan ugu mahad celinaynaa iyo dhammaan bahda Kasburco channel iyo Qalabjaan tube aad baad u mahadsantihiin